السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسن دلهانتين بوامر كلا يحمنتيني ورقتي ضوحي قرآن وتطبعت كهالمركة لها تانشا شدة التلفزيون كان يشمع الديتي برنامج كالا وحيدين دادي ساني قواعد Bosnia waxay halis ugu jirtaa inay kala go'do sida ay ka digayaan xeelleerayaasha caalamiga ah. Waxaa qortay jaridda Guardian ee ka soo baxda cariga Ingiriiska. Wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan dalkaasi ayaa ka digay in waddanku ku jiro khatar ah inuu kala go'o isla markaana ay soo noqoto colaadda sokeeye. Wakiilka oo warbixintiisa u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay haddii go'doonka Serbiya ay fuliyaan hanjabaadooda ah inay dib u soo celinayaan jabhadahooda isla markaana ay kala qayminayaan ciidanka qaranka Bosnia ay lama horaan tahay nabad ilaaliyaal caalamiya la geeyo dalkaasi si loo joojiyo silbashada dagaalka cusub. waajibaadka nabad ilaalinta caalamiga ah ee Bosnia hadda waa hawsha ciidamada midowga Yurub ee hadhaaga ah in ka badan 700 oo xoogag NATO ah halka ay labadooduba ku jiraan dib u cusboonaysiinta isbuucan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Laakiin Ruushku wuxuu ka hanjabay inuu xanimi doono qaraarka haddii aan dhammaan tixraacyada wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Bosnia meesha laga saarin, taasoo suurtagal ah inay wiiqdo awoodda wakiilka oo ah kormeeraha heshiiska Dayton ee 1995. warbixintiisii u horeysay tan iyo markii uu qabtay xilka bishii Oktoobar, wakiilka oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda Jarmalka wuxuu ka digay inay Bosnia wajahayso khatarta jirta ee ugu weyn tan iyo dagaalkii kadib. Serbiyaanka ayaa ku hanjabay inay ka bixi doonaan hay'adaha heer dowladeed oo ay ku jiraan ciidamada qaranka oo lagu dhisay kaalmo caalami ah rubco qarnigii la soo dhaafay, ayna dib u soo celin doonaan ciidan Serbiyaan ah. Afhayeen u hadlay Serbiyiinta 14 bisha Oktoobar wuxuu sheegay inuu ku qasbi doono ciidanka Bosnia inay ka baxaan Jamhuuriyadda Isbeyska qaybta Serbiya ee Bosnia. Digniinta ergeyga Bosnia ayaa loo gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ku guda jira diyaarinta qaraarka sanadlaha ah ee dib u cusboonaysiinta shaqada nabad ilaalinta. iyadoo cod loo qaaday runtii toddobaadkan, Moscow ayaa ku hanjabtay inay xanimi doonto xalinta haddii aan dhammaan tixraacyada wakiilka beesha caalamka ee dalkaasi aan laga saarin meesha. Kremlinka ayaa kasoo horjeestay magacaabista hay'adda golaha hirgelinta nabadda oo ah hay'ad caalami ah oo ku meel gaar ah oo loo aasaasay inay dhammaystirto heshiiskii Dayton, waxayna diiday Moscow inay aqoonsato awoodda ergeyga. Intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada. Waxaan la socodsiinayay anigoo Aydman. Tan iyo intaan dib u kulmi doona amaano. Allah kulanti dambe oo xiiso leh.